kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal madasha ayaad si toos u daawanaysaan waxyaabaha idin kugu soo gudbin doona barnaamijkan aad ku daawan doontaan haddii la weyn raali ka noqdo saaxiibayaal daawadayaal waxa kamid noqon doona Itoobiya waxay ceerinaysaa ciidamada kamid ah liyu booliska deegaanka Soomaalida Itoobiya maxay ka dhigan tahay talaabadaas ciidankaasi loo ceerinayo meeshaysadka Soomaaliya kala dhaxeeya ayay uladan leedahay maxay tahay ama ma tahay fursad ay dawladda Soomaaliya u furan oo ay ka faa'iideysan karto oo ciidamadaasi siin karta aqoonsi iyo mushaaraad ama ay daryeel u fidin karto si Itoobiya loogu jibiyo barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa maareeye wajigabax ayuu kala kulmay baarlamaanka Soomaaliya maxay tahay ama isqabqabsigaasi baarlamaanka iyo maareeye u dhaxeeyay muxuu ka dhigan yahay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa haddii la weyn raali ka noqdo xog amuurtaas ku saabsan maasuqa Soomaaliya lagu eedeynayo halkee ayuu markaasi gaarsiisan yahay maxay tahay ama musuqa dalka ka taagan ee xarga goostay arrimo culus oo laga cabsi qaba ayaa jira sida ay leeyihiin qobarada arrimaha siyaasadda ka faallooda qodobada ayaanu falanqeynaynaa ay soo dhawaada leegareeya shargareeya oo la wadaagida saaxiibadiina daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu ku bilowna barnaamijkan waxaa socda dhaqdhaqaaqyo markaasi Itoobiya ay gadaal ka taagan tahay kuwaasi oo iyagu shaqada looga ceerinayo ciidamada liyu booliska ah ee Soomaalida ah ee Itoobiya markaasi ka diiwaan gashan ama ka midka ah kuwaasoo iyagu markaasi liyu booliska la yiraahdo kuwaasoo la sheegay in saraakiil iyo ciidamo badan ee dawladda dalkaasi Itoobiya ay shaqada ka dirtay taasoo markaasi hadalhayn iyo buuq xooggan ka dhex abuurtay gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasoo dhawaan muuqaal barta bulshada ku baahay ay si weyn u cadeeyeen bulshada iyo dhalinyarada dadkaasi ku sugan oo ku sugnaa jaamacadda dalkaasi deegaanka Jigjiga University in aysan ka mid ahayn Itoobiya oo yihiin Soomaali mar uu Cagdar oo madaxweynaha maamulkaasi uu weydiiyay cid ay yihiin ama Itoobiyaan ay yihiin si kastoo xaaladda noqoto saraakiisha ciidamada kale ee deegaanka Soomaalida state ayaa waxa la warinayaa in shaqada laga eriyay waxaana hadalhayn xooggan ay ka dhex abuurtay bulshada deegaanka maadaama xubno liyu booliska ama ka tirsanaa shaqada laga diray shaqo ka ceerintan ayaa waxay markaasi tahay mid iyadu aan la fahamsanin ilaa ay hadda micnaha ay daaran tahay ama waxa loo sababeeyay saraakiisha ciidamada kale ee deegaanka Soomaalida haddii shaqada laga eriyay in ka badan oo iyaga ka mid ah oo soo xirma waxay markaasi ay muhiimad weyn u tahay ayay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya in ay ka faa'iideysato dawladda federaalka ee Soomaaliya si kastoo ay xaaladda noqoto dhacdadan waxay ka dhigan tahay ayay leeyihiin in shaqo ka ceerintooda kadib ay aadi karayaan meesha ay doonaan taasoo iyagu markaasi u habboon maadaama ay guryahooda iyo qoysaskoodu ay leeyihiin kuwa markaasi daryeel aanan haysan dawladda federaalka ee Soomaaliya Itoobiya ay qobaradu u soo jeedinayaan waa dawladda federaalka ee Soomaaliya iraahday ayay qobaradu u soo jeedinayaan in iyagu laga rabo inay ciidankan daryeel u sameeyso oo ay xoojiso sidoo kalena ay qaramayso kuna soo darto ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida wararka naga imaanaya deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku waramayaan ilaa iyo 20 sargaal iyo ciidamadoodu ay kuwaas oo ku dhow 500 askari ayaa la wariyay in markaasi shaqada laga diray taasoo wili aysan cadeen sababta loo diray iyo waxa loo cuskaday dhaqdhaqaaqyo ayaa markaasi ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasoo ay markaasi aad u fahamsan tahay Itoobiya in haddii tallaabooyinkan iska soo horjeeda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kala dhaxeeya haddii ay markaasi qaado in lagu waxyeeleen karo si kastoo ay xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu markaasi noqday mid hadalhayn xooggan ka dhex abuuray bulshada dadka deegaanka si kastoo ay xaaladda noqoto Itoobiya ayaa si weyn ugu soo gardarooday Soomaaliya maadaama heshiis ay la gashay gobolada waqooyi ee Soomaaliland magac la baxay si ay bad u hesho mawgaasi ayaa markaasi tira 3 jeer lagu kala kacay Istanbul Ankara heshiis uu markaasi dhexdhexaadii ka ahaa Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga oo hore u soo noqday taliyaha sirdoonka dalkaasi ilaa 3 jeer ayuu fashilmay isku dayga dawladda Soomaaliya ku doonayso in arrintaas ay ku istaajiso walow Itoobiya ay markaasi wili u caddahay in heshiiskaasi la sii riixo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeeyay hadallo ay sheegeen in Itoobiya ka shalay doonto haddii tallaabadaas ay sii qaado maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya si weyn isku xoojinayso bilooyinkan marka loo eego xagga militariga Soomaaliya xagga cirka ama dhulka midka ay noqotaba taasi oo ay markaasi doonayso dawladdu haddii Itoobiya ay ku sii adkaysato dhabahaasi in ay markaasi ugu bedesho naar ama dhimbilo kulul musuq ayaa dalka ka jira ayay leeyihiin dadka markaasi arrimaha siyaasadda indhendheeya musuqa dalka ka jira ayaa xarga goostay sida la warinayo taasi oo sabab u tahay isku milanka siyaasadda ganacsiga iyo arrimaha qoyska
sida uu shaaciyay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanka oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in musuqa dalka ka taagan uu horseedi karo arrin khatar ah oo ah in wax walba looga tanaasulo dhaqaale awadeed. qoraal uu ku baahiyay barta Facebook ayuu ku daabacay sidan: musuqmaasuqa dalka ka taagan waa xaqa goosad alamtarana soo dhaaf siyaasad ganacsi iyo qoyska ayaa isku milmay. musuqa waa 3 nooc. haddaba kan koowaad waa musuqa maamulka, waa mid awood maamul ku siman oo adeega dadweynaha lagu silciyo kadibna laaluush looga qaato si loo fududeeyo adeegii ay xaq u lahaayeen. kan labaad waa musuqa siyaasadeed, waa mid markaasi awood siyaasadeed lagu fuliyo sida qandaraas, adeeg service, lacag laga tabco iyo ganacsi shakhsiyaad loo xiro oo kale. tani waxay inta badan ku timaadaa in qofka awoodda siyaasadeed leh uu shirka markaasi ku yahay faa'iidada ama lagu naasnuujiyo shakhsiyaad qoyskiisa ah ama ay isku qabiil yihiin ama koox iyo asxaab. saddexaad ayuu ku tilmaamay musuq istiraatiiji, waa mid ay dhici karto in qayb ka mid ah geyiga jamhuuriyadda ama madaxbannaanida qaranka looga tanaasulo ama codka dawladda ay markaasi kula safanayso dawlado loolamaya la iibiyo. tusaale, Soomaaliya waxay xubin ka tahay ururo goboleedyo kala duwan. qaramada midoobay waxay sanadka soo socda ka mid noqon doontaa golaha ammaanka. musuqa istiraatiijiga ah weli ma dhicin, laakiin haddii labada kale ee haatan xarga goosadka ah laga hortagin, siyaasiyiinta iyo awoodaha kale ee bulshada rayidka ah iyo warbaahinta iska xil saareen, wax diidaya ma aha ma lahan in musuqa istiraatiiji ah lugaha markaasi lala galo, ayuu yiri mudanahan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbigaasi wadajir ee muddo markaasi soo loolamayay, iminkana markaasi ah mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. mid ka mid ah xubnaha sida weyn inta badan afkaarihiisa ugu muujiya meediyaha ayuu ka mid yahay mudanahan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. si kastaba xaaladda noqoto, isla baarlamaanka ayaan taaganahay. wasiir Maareey ayaa maanta hortagay xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Wajigabax ayuu kala kulmay wasiirka baarlamaanka hortiisa. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa maanta wajigabax kala kulmay mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta hortagay kulankan oo la filayay inuu wasiirku markaasi kaga hadlo isla markaana uu ka jeediyo arrimo ku saabsan tallaabooyin dhowr ah oo markaasi xukuumadda iyo wasaaraddiisu ku saabsan, isla markaana uu xildhibaanka kula wadaago shuruuc muhiim ah iyo howlaha wasaaradda ayaa la soo xiray natiijo la'aan ama isagoo ku soo idlaaday in aan la gaarin yoolkii loo baahnaa kadib markii ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada golaha. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdulaahi Cumar Abshirow oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in arrintan ay ceeb ku tahay baarlamaanka, wuxuuna tilmaamay in Maareey iyo howlwadeennada kale ay wasaaraddu ay shaqo u soo diyaar garoobeen, balse kulankii uu kooram la'aan u baaqday, taasina ay niyad jab ku tahay markaasi baarlamaanka sida uu ka dhawaajiyay. xubnaha wasaaradda beeraha waa joogaan, niyad jab ayay ku noqotay wasiir Maareey ayaa ugu horeeyo maxaa yeelay shaqo ayaa u taalay, ayuu yiri Cabdulaahi Abshirow. sidoo kale wuxuu dignin adag u diray xildhibaanada maqan, isagoo sheegay in hadda kadib la isla aadi doono ku dhaqanka xeer hoosaadka, isla markaana xildhibaanadii ka maqnaado kulamada baarlamaanka lagu goyn doono lacaga gunno ah ama ganaax ah. wixii hadda ka dambeeyo jeebkiina ayaa loo dhaadhacaa, xildhibaanada way wada ogol yihiin, xeer hoosaadka ayaa ku qoran tahay lacagta markaasi la jaraayo, ayuu yiri gudoomiyaha Abshirow, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay xildhibaanada maqan inay kulanka soo socda ee Arbacada ay soo xaadiraan si baarlamaanku u sii wato howlaha shaqo ee hor yaalla. xildhibaanada maanta maqan waxaa ka codsanaynaa inay Arbacada soo buuxiyaan golaha shirkeenna maantana waa inoo xiran yahay, ayuu sii raaciyay Abshirow. baaqashada kulankan ayaa ku soo beegmay xilli uu haatan sii xoogaysanayo guuxa mooshin culus oo qaar ka mid ah xildhibaanada ay ka gudbiyeen wasiirka arrimaha dibadda mudane Axmed Macalin Fiqi oo ay ku eedeeyeen inuu cuuryaamiyey howlihii shaqo ee wasaaradda. si kasta oo ay xaaladda noqoto, Fiqi ayaa si weyn loogu eedeynayaa in howlahaasi uu cuuryaamiyey, laakiin dadka arrimahaas u dhuundulala waxay leeyihiin waa kuwo markaasi ka cariisan xubnaha diidan Fiqi arrimaha la xiriira socdaalka la yiraahdo viisaha ee Shanghai ee tahriibinta ah ama dadku ay ku baxaan oo markaasi wasaaradda ay joojisay ama wasiirku uu joojiyay, kuwaasoo xubno lagu naasnuuj ama macaash kaga jira arrintaasi
ay markaas iminku gadaal ka riixayaan talaabadaasi inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijka nabadina saaxiibayaal